السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتك كحران كابي تكنولوجي لانجويج سودوادا دمانتين ميل كستا كسوغنتين وقتكو هيدين وعنادو وحان دين ودا 10 ودا sheekaysiya oo aad iyo aad u xiiso badan oo ku saabsan imtixaanka ku saabsan ama imtixaamada la galo ku saabsan meelo badan ayaa imtixaam laga gelayaa arday badan ayaa foonfooro iyo waxa weeyaan jaamacadda imtixaam ku gelaya dhamaantiin ilaahay waxaan idinka baryaynaa inuu ilaahay idin fududeeyo imtixaanka oo ku gudubtaan buundooyin aad u sareeya imika imtixaan ama exam hore loo galay ayaan rabnaa inaan ku sameeyno wada sheekaysi oo laba arday ay ku sheekaysanayaan intaanan san bilaabin casharku aad buuxiisa badan yahay waxaan ka codsanayaa inaad like samayso isla markaana aad la wadaagto walaalahaaga kale Facebook iyo YouTube labadaba meeshaad igala socoto waad ku mahadsan tahay daawashadaada saaxiib qaali waan jeclahay inaan u faa'iideeyo dadkayga iyo ummadayda oo in badan aan gaarsiiyo casharo xiiso badan leh oo ay u baahan yihiin aan gaarsiiyo adiga kaliya waxaan ka codsanayaa oo aan ka rabaa qoriyato waa maxay inaad fiidiyoga dhageysato isla markaana aad la wadaagto saaxiibadaada kale fiidiyogana aad like garayso waad ku mahadsan tahay daawashadaada iyo la socodka casharada Kaabe Technology and Language aan isla bilowno cashkeena maanta lesson 49 ashka 49aad dialogue wada sheekaysi haddii aad buug haysato Kaabe Technology and Language book 2 English dialogue haddaad hayso qaybta normal English courseska waxaad la soo baxdaa casharka 49aad ee wada sheekaysiga la soo baxo way A iyo B weeye oo laba qof oo kala ku sheekaysanaya how about wasidee if haddii we inagu talk about aan ka wada hadalno wax ku saabsan the last examination imtixaankii ugu dambeeyay kawaran haddaan ka wada hadalno how about if we talk about the last examination kawaran imtixaankii ugu dambeeyay haddaan ka wada hadalno imtixaankeenii ugu dambeeyay ee aan galnay kawaran haddaan ka wada hadalno last ugu dambeeyay exam ama examination imtixaankii ugu dambeeyay haddaan galno ka wada hadalno kawaran It is a very interesting topic. Waa mowduuc aad u xiiso badan. It is very interesting topic. Waa mowduuc aad u xiiso badan. How was the last examination? Kawaran imtixaankii ugu dambeeyay sidee buu ahaa imtixaankii ugu dambeeyay? How about the last examination? Kawaran imtixaankii ugu dambeeyay kawaran I think waxaan u malaynayaa isaga oo imtixaankaahi was a very good exam inuu ahaa imtixaan aad u fiican exam waa imtixaan examination waa imtixaan kan waxa weeyaan waa noun kana waxa weeye waa verb marka I think waxaan u malaynayaa it is a very good inuu ahaa imtixaan aad iyo aad u fiican I think waxaan u malaynayaa isagu was inuu ahaa a very good exam imtixaan aad u fiican was it ma aha isagu difficulty mid adag miyuu ahaa or mise wuxuu ahaa easy one mid fudud iyo mu aha labada imtixaan adag buu ahaa mise imtixaan fudud midkee buu ahaa was it a difficulty or easy one ma wuxuu ahaa mid adag mise wuxuu ahaa mid jilicsan mid ahaan ayaa la weydiiyey eedii ayaa weydiisay dadna maxay biidi uu leeyahay qofkii kale as far as ilaa iyo inta aan kala socdo as far as ilaa iyo inta I am anigu concerned aan kala socdo as far as ilaa iyo inta I am anigu concerned aan kala socdo it isagu was wuxuu ahaa neither midnaba mu ahayn labada midna mu ahayn neither labada midna mu ahayn
easy mid jilicsan oo imtixaan fudud ah mu ahayn nor difficulty mana ahayn imtixaan adag difficulty ma ahayn imtixaan adagna ma ahayn oo difficulty ah it isagu was wuxuu ahaa normal examination imtixaan iska caadi oo dhexdhexaada ayuu ahaa as far as ilaa iyo inta I am anigu concerned aan kala socdo it isagu was neither laba midnaba mu ahayn neither laba midkood midnaba ma ahayn easy mid jilicsan ma ahayn nor difficulty mid adagna mu ahayn it isagu was wuxuu ahaa normal examination imtixaan iska caadiya oo dhexdhexaada ayuu ahaa waayahay dabada su'aashan kale weydiinaya wuxuu leeyahay what are you expecting maxay baad ka rajaynaysaa from the exam imtixaanka maxaad ka rajaynaysaa imtixaanka are you expecting ma waxaad rajaynaysaa to pass inaad gudubto oo aad baasto oo aad ka gudubto isaga imtixaanka inaad baasto oo maaragtay gudubto miyaad rajaynaysaa or mise waxaad rajaynaysaa to fail inaad ku fashilanto ama inaad ku dhacdo from it isaga ma inaad ku dhacdaad rajaynaysaa ku dhacaysaad rajaynaysaa mise waxaad rajaynaysaa inaad ku fashilmi doonto mise inaad baasi doonto kee ayaad labadaa rajaynaysaa what are you expecting from the exam maxay baad ka rajaynaysaa examka are you expecting to pass it ma waxaad rajaynaysaa inaad ku baasi doonto or to fail from it mise waxaad rajaynaysaa inaad ku dhici doonto it isaga oo imtixaanka ah muxuu markaa ku jawaabay I am not expecting anigu ma rajaynayo to do well inaan fiicnaan doono inaan hagaagi doono anigu ma rajaynayo macnaha inaan fiicnaan doonona ma rajaynayo inaan dhici doonona ma rajaynayo I am not expecting to do well ma rajaynayo inaan ku dhici doono inaan hagaagi doono baan leeyahay intaas wax sentence-kaas waa maxay I am not expecting to do well anigu ma rajaynayo inaan hagaagi doono I will be happy waan ku farxi doonaa I will be happy waan ku farxi doonaa if haddii I anigu just scared to haddii aan ka gudbo oo aan ka dhex duso anigu waan ku farxi doonaa I will be happy if I just scared to haddii aan ka dhex gudbo waan ku farxi doonaa I anigu was waxaan ahaa markaan imtixaanka gelayay I was nervous waan ku kacsanaa imtixaanka about the exam imtixaanka waan ku kacsanaa markaan imtixaanka gelayay I thought waxaan u malaynayaa I anigu was going to Frank waxaan u malaynayay inaan ku dhici doono Frank erayga Frank waa ku dhicitaan waxaan u malaynayay waxaan ku fekerayay inaan ku dhici doono I thought I was going to Frank waxaan u malaynayay inaan ku dhici doono imtixaanka but laakiinse fortunately nasiib wanaag most questions su'aalaha badankoodu come from waxay ka yimaadeen two chapters laba chapter ayay ka yimaadeen ama laba unit ama laba cutub ayay ka yimaadeen ama two books laba book ayay ka yimaadeen that kuwaasoo labadaa chaptero I anigu revised well aan si fiican u soo muraajaceeyay si fiican aan u soo revision gareeyay si fiican aan u soo diyaariyay ayay su'aalaha badankoodu ka yimaadeen therefore sidaa darteed I am expecting waxaan rajaynayaa to pass inaan ku gudbo oo aan ku baaso with high marks aan ku gudbo oo aan ku baaso marks ama boodooyin aad u sareeya inaan ku gudbo ayaan rajaynayaa I am not expecting to do well intan hoose eedan dambe haddaan biidan dambe ku celino I am not expecting to do well I will be happy if I just scroll through I was nervous about the exam I thought I was going to Frankie but fortunately most the questions comes from two chapters that I received well therefore I am expecting to pass with a high marks waxaan rajaynayaa inaan ku gudbi doono buundooyin aad u sareeya
dhammaantiin aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin daawashada casharada Kaabe Technology and Language. haddaad videogan ka heshayna sii share garee dhammaan ardayda gelisay imtixaamaadka. ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay imtixaanka uu u fudaydiyo oo ay dhammaan qalbigooda iyo niyadooda uu ku sugo su'aalaha marka la weydiiyo. Thank you very much. aad baa u mahadsantihiin. videoga inoo like gareeya sidoo kale u share gareeya saaxiibadiina kale. halkaas aan kusoo gabagabeynayaa mowduucan gaaban. casharo aad u xiiso badan ayaa inoo soo socdaa. ha sugi waayna saaxiibayaal. thank you very much. aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin daawashadeena. waa inoo iyo cashkan xiga. inta kasii horeysa waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.